bismillaahi raxmaani raxiim daawadayaal kusoo dhowaada youtube-ka wararka soomaalida qodobada ugu waaweyn aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ila lagu kalsoonaan karo ku dhow gudoomiyaha golaha shacabka mudane maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa inoo sheegay inuu jiro musuqmaasuq baahsan xafiiska gudoomiyaha golaha shacabka. xeer ilaaliyaha qaranka ayaa la sheegay inuu amar ku bixiyey in la xiiro akoonka lacagta loogu shubo golaha shacabka ee lagu socodsiiyey shaqada baarlamaanka ee loo yaqaana running costsiga si baaritaan loogu sameeyo musuqmaasuq la sheegay inuu ka jira hanaanka loo adeegsada lacagtaasi. in ka badan 100,000 oo dollar ayaa bishiiba ku baxda howlo socodsiinta baarlamaanka sida xogta aan ku helnay, waxaana haddana loo sheegay in lacagtaasi shakhsiyaad gaar ah jeebkooda ay ku dhacdo. xafiiska xeer ilaaliyaha ayaa si gaar ah u baaraya xogayaha guud ee golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Cabdikariin Xaaji Cabdi Buux iyo madaxa maaliyadda golaha shacabka, kuwaas oo lagu tuhumayo inay dana gaar ah lacagtaasi loogu talagalay adeega golaha shacabka u isticmaalaan. sida wararkaana ku helino gudoomiyaha golaha shacabka maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa ka codsaday xafiiska xeer ilaaliyaha inay sii wataan baaritaankooda balse ay u fasaxaan akoonka si lacagaha howlo socodsiinta hakad ugu gelin. xildhibaanada golaha shacabka ayaa hadda fasax ku maqan, mana jirto wax shaqo ah oo hadda socda marka laga reebo shaqaalaha rayidka oo si maalinla ah howshooda u wata. dadka siyaasadda falanqeeya ayaa ku waramaya inay xafiisyada dowladda ka jiraan musuqmaasuq iyo ku-tagrifal awoodeed, kuwaas oo u baahan awood dheeriya iyo madax banaanin shaqo si waajibaadkooda looga guto. xukuumadda xasan cali kheyre ayaa isku tirisa inay tahay mid si xoogan ula dagaalamaysa musuqmaasuq, balse waxaa muuqanaysa inay sii kordhayso mas-uuliyiinta ku tagrifalaya awoodda shacabka ay siiyaan. guud ahaan warkii aad kala socoteen youtube-ka wararka soomaalida daawadayaal waa naga intaa. subscribe dheh channelkan, comment iyo share ku qabo, waana mahadsantihiin.